dhaqaatiirtu waxay ii sheegeen gabadhan maskaxda laga hayaa meeshaanne wax ma loo qaban karo isbuucii 2 mar camal ayuu qalal ku soo boodaa waa qalay ilaa laga duro oo cirba suuxdin ama xanuun baabel lagu duro moogi meestaagaysa. Dhibane Ilhaan Cali Muuse waa gabar ku nool magaalada Muqdisho oo ku dhawaad muddo 18 sano ah la xanuunsan cudurka ay Soomaalida u taqaan qalalka. Ilhaan waa qof aan ogaalkeeda joogin oo aan ka warhayn xilliga ay ka imaanaysa saxarada ama kaadida. Cali Maxamed Muuse oo ah aabaha dhalay Dhibane Ilhaan wuxuu ii sheegay inaysan codsan karin xitaa haddii ay u baahan tahay cunno. sidoo kale wuxuu intaa ku daray in isbuucii 2 mar ku soo boodo cudurka qalalka. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaa iskale ilaah mid labaad waxaa mahad iskale Soomaali Cable oo maanta isoo booqday oo Ilhaan xanuunkeeda waxa gala qaybsanayo hadii xaaladda guud aan ka waramo Ilhaan iyadoo oo 5 bil jirta ay xanuun soo booday marka haddana waxaa jirta 18 sano marka Ilhaan waa qof iska xanuunsan oo iska jiifta wax aan cunayn waxay si aan ku dhahayn baal dog soo socda xataa aan ka carareynin oo marwaxadaas ay ku joogtaa aan kuleel adkaysan karin oo iska oynayso oo isbuucii 2 mar ama 3 mar lagu soo boodaa qalal lagu soo boodaa ilaa lagu duro cirbid hurdo iyo xanuun isku jiro ma aamusaysa mana fadhiisan qalka uu soconaale marka Ilhaan xaaladeeda waa sidaas gudahana wax ma loo qaban karo oo isbitaal baagii aniga waxaan qof kaligiis ah oo yani idman waardiya mas waxba u raadiya marka qof noolna laga ma tagi karo dad nool yani jiifanayso kaniin hurdila laga sii ma baseexanayso waa qeylay waa qalale kuleel haday dareento way oynaysaa haday baahan tahay wax isii ku dhaysa haday waxaaraay ku dhaysa kaada ku dhayso waana qof weyn marka xaalkeeda asaas dhaqaatiirtu waxay ii sheegeen gabadhan maskaxda laga hayaa meeshaanne wax ma loo qaban karo isbuucii 2 mar camal ayuu qalal ku soo boodaa waa qalay ilaa laga duro oo cirba suuxdin ama xanuun baabel lagu duro moogi meestaagaysa. waa tahay in Ilhaan waa gabadhan aad u jeedaan oo muddo 18 sano xanuunsan Cali Maxamed oo ah Ilhaan aabaheeda wuxuu ii sheegay inuu qoyska uu ku tiirsan yahay isagana uu kor fadhiyo habeen iyo maalin Ilhaan mararka qaar haddii uu helo qof oo kaga tagana uu qutiliyoonkii u raadiyay maalinkaas qoyska oo danyar ah waxa loo sheegay in gabadha gudaha dalka aan waxba lagu qaban karin isla markaana dalka dibadiisa wax loogu qaban karaa. Ilhaan aabaheeda wuxuu ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda ka codsaday inay soo caawiyaan. والله waxaan ka codsanaa madaxda Soomaaliya oo madaxweynaha ugu horeeya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo intuu Ilaahay hanti siiyay aan ka codsanaynay wax ay u kaalmeeyaan oo gabadhan caafimaadka Ilaahay haayo laakiin dadaal Ilaahay ku yiri Soomaa telefoonka 7 45 53 76 7 45 53 Ismaaciil Adan Bariise Somali Cable TV magaalada Muqdisho.